Welcome to Mola Academy. Today we're going to take a new lesson which is English alphabets. If you're new to the channel, make sure you hit the like button and subscribe. In this lesson, we're going to learn basic alphabets. And kusoo dhawaada channelka Mola Academy. And qaybtan ama coursigan waxaan ku baran doonaa bilowga luuqada Englishka. Haddii aad nagu cusubtahay fadlan nagu soo biir. waxaan ka bilaabaynaa marka ugu horeyso xarfaha amaba alifbeetada luuqada Ingiriiska. waa English alphabets. waxay isugu jiraan capital letters, xarfo waaweyn, and small letters iyo xarfo yaryar. waa capital xarfo waaweyn waaye. So haddii aan ka bilowno midka ugu horeeya waa A capital ah, A oo small ah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So you can say Z or Z. Both are correct. So Z or Z. Okay, let's revise all this again. Okay. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So the first word A, which is a capital letter, and the second word A, which is small. The first letter B is capital. The second is a small letter. The first always is capital. The second is always small. I hope I make that clear. Next, so we have here consonant, which means shubane, means silent words. Okay, these are the silent words in English. And erayadan waxaa loo yaqaanaa shubane ama consonants. So waxaa loo yaqaanaa consonant, shubane. Consonant waa shubane. waa erayo aan dhawaaq bixinaynin. So erayada aan dhawaaqa bixinaynin waa P, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. So these are the silent words, which is consonant, and these are sound vowels. So vowels waa shaqal, waa erayada sameeya jabaqda amaba dhawaaqa u sameeya.
So af soomaaligana waa intaan, englishkana waa intaan. So erayadan hoose ayaa waxaa loo yaqaanaa vowels. Waa a, e, I, o, u. These 5 letters are vowels. Vowel waa shaqal, consonant waa shibane. Okay, casharkan waa casharka ugu muhiimsan. Ha ka soo gudbin inta aad ka xifdinaysid casharkan iyo kan ka horey. Waxyaalaha ugu asaasan waxaa waaye inaad xifdisid dhawaqa iyo maxallahays ay u kala baxaan, inuu small letter u yahay iyo inuu yahay capital letter inaad fahantid. Second, waxaad u baahan tahay inaad kala fahantid erayada consonant-ga, kuwa shibanaha ah iyo kuwa shaqalka ah, vowels and consonants. Labadaas inaad kala fahantid. Waxaan dhahnay shantan waa maxallahay shaqal. Markii kore aan joognay meeshan calaamada buluug waxaan u sameeyay waxay ahayd waa si aan u ogaano erayada shaqalka ah. So those are kuwa xarfaha shaqalka ah. Next, let's go. Halkan waxaan ku baran doonaa erayada oo ku dhex jira jumlad. Marka waa casharkan haddii aad isleedahay hal fadhi ku bara, waxaad u baahan tahay inaad waqti siisid aad ku celcelisid. Okay, let's dive in. A is for apple. A waxay ku dhex jirtaa ama loo qaadan karaa apple, tufaax. Apple waa tufaax. Apple waa tufaax. Apple waa tufaax. Okay, apple is tufaax. B is for book. Book waa kutub. B is for book. Book waa kutub amaba buugan caadiga anaga aan wax ku akhrisano. Okay, book waa book. Okay, cat waa bisad, yaanyuur ama mukulaal. You can say cat. So C is for cat. Cat. Apple, book, cat. Bisad. D is for dog. 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 Dog waa A. Okay. E is for egg. Egg waa ukun. Egg waa ukun. Egg waa ukun. Okay. Frog. F is for frog. F is for frog. Xarfahan halkan ku yaala waa A, B, C, D, D oo maxallahay gelinay waa oo aan meel gelina waa wax kale ma ahan. Frog waa rake ama rah, dadka qaar si u yaqaaniin frog, rake. Okay, giraffe. Giraffe. Giraffe waa geri. G is for giraffe. Waa geri midaan dheer. Okay, oo duurjoogta ah. Geri is an animal. Geri. G is for giraffe. H is for house. Guri. House. House or home. Guri. House waa guri. I is for ink. Ink waa khad. Khadan wax lagu qoro qalinka. So khad. I is for ink. Ink waa khad. Okay. G is for jack. Garaafe. Weel wax lagu shuban karo oo garaafe. Jack waa garaafe. Okay. And K is for king. King waa boqor. King. K is for king waa boqor. K is for king. King waa boqor. L is for lion. Lion, libaax. Lion, libaax. Libaax is an animal. M is for mouse. Mouse waa dooli ama jiir ka u taqaanid. Mouse waa dooli ama jiir. N is for nose. Nose waa sun. Okay, nose waa sun. Okay, let's revise this again. Apple, tufaax. Book waa book. Cat, bisad. Dog, egg. Ukun, frog, rake ama rah. Giraffe, geri. House, guri. Ink, khad. Jack, garaafe. King, boqor. Lion, libaax. Mouse, dooli. Nose, sun. Next. Halkan waxaan ku haysanaa sidoo kale oo noo harsanaa. Okay, O is for orange. Orange. Orange waa orange midaan la cuno. Pen waa qalin. Pen waa qalin. Queen waa boqorad. Queen waa boqorad. Q is for queen. R is for rabbit. R is for rabbit waa bakayle ama pony. Bakayle sidoo kale midkan dhagaha dheer. And S is for snake. Snake waa mas. Okay. T is for table. T is for
Table waa miis. Table waa miis. U is for umbrella. Umbrella waa dallad. Okay, dallad midaan. Okay, dallad. V is for vest. Vest waa garan. Vest waa garan. Okay, garan. V is for vest. Window is daaqad. Window is daaqad. W is for window. X for X-ray waa raajo. X for X-ray, raajo ama raajato. Y is for yellow. Yellow is a color. Waa jaale, midabkan jaalaha. Z is for zebra. Z is for zebra. Waa dameer farow. So these are all the words or all the letters in alphabet, English alphabet. So the last one is Z. Marka xarfahan isticmaalkooda waa in maxallahay wax aad ka ogaatid. Marka halahan aan kusoo koobaynaa casharkeena. Haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe sar. Sidoo kale haddii aad tahay bilow taxanahan qaybtan playlistigan hadda aan joogno ayadana ku taxnow. Aadaad u mahadsan tahay. Kusoo dhawow channelka.